inagu haddaynu nahay dad muslima waxaa nalagu baraarujiyay wax akhriska si wanaagsan taas oo daliil cad u tahay in nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ee aayaddii u horeysay lagu soo dejiyay ay ahayd iqra ama oo macnaheedu yahay akhri haddii aan u gudagalo faa'iidooyinka wax akhriska waxaa ka mid ah kobcinta garaadka sida ay isla qireen saynisyahano badan ama aqoon-yahano badan qof waliba inta uu ka akhris badan yahay qofka kale ayuu caafimaadkiisu xataa kaga wanaagsan yahay qodobka labaad ee faa'iidada akhriska waxa uu kor u qaadaa fahamka maskaxda wax akhrisku wuxuu muhiimad u leeyahay qofka maskaxdiisa sidoo kale waxyaabo muhiimka wax akhrisku leeyahay waxa kamida si gaar ah markii laga hadlayo bahda warbaahinta wax qorista iyo muhiimadu leeyahay eray bixinta taasna waxa ka dhaxli karaa markasta oo aad buugaag akhrisid waxay maskaxda awood u yeelanaysaa in wixii hore wax ka badan aad heshid taasna waxay fursad ku siin kartaa inaad wixii wax ka wanaagsan qodid wixii wax ka wanaagsan ku hadashid maadaama maskaxdaadu ay korayso fikrado badan oo dad soo aruuriyeen aad akhrinaysid waxay ka saaciidi kartaa marka inaad heerka aad joogtay mid ka sareeya gaadhid marka wax akhriska wuxuu muhiimad u leeyahay qof kasta waxaana runtii wax aad farxad u ah in magaalada Gaalkacyo ay kamid tahay meelaha wax akhriska ay bulshada muhiimad u saaraan taas oo laga arki karo sida dhalinyaradu ay u joogaan goobaha akhriska oo Gaalkacyo Library oo hadda aan ku suganahay uu kamid yahay waxayna fursad u noqon kartaa in qofka dhalinyarada ah uu ku dhiirado inuu isbedel uu isagu ka bilaabanaya in uu horseed u noqdo ardadu waxa weeye dadka akhristayaasha maanta weeye iyo qorayaasha bari haddii maanta inta waxaad maankaaga gelisid ayaa bari ka soo baxay marka waxa laga rabaa inaad akhriska ku dadaashid akhriskuna waxaad ku dadaali kartaa tababarina u samaysatid si routine la u timaad library-ga sid maxaan ku radaa meel kasto aad maraysid aad buugaaga sidatid iyo qalinkaaga aad maxaan ku radaa xigmad badan ku soo celisid qoritaanka way ogtihiin buugtaan maanta inta meesha yaala siyaadi miyaan haddaan wax la qorin intoodaas ay ahaanayaan marka haddii aad wax qortid maalin ummadaada baa wax ku darsanaysaa haddii aad ku noqotid qof adduunka ku ah ama magaaladaada ku ah dheeri ku ah oo maxaan ku radaa ama wax la yaqaan irmaaneeyaha loo yaqaan aad kaliya noqotid oo aad xaafadaada kaliya ku koobnaatid oo aad bulshadii waxba ku celin waxa noqonaysaa qof bulshadii dheeri ku ah marka waxaan kula dardaarmay marka inaad bulshada dheeri ku noqotid bulshada mid anfaca maktabada Gaalkacyo Library oo ay furitaankeeda iska kaashadeen bahda Scansom iyo hay'adda Tag Foundation runtii mahad gaar ah u celinaya fariin kooban baan inaan halkan ka diro runtii akhrisku waxa la yiraahdaa wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ugu waaweyn ee qofka bini'aadamka uu ku dhismo faa'iidooyin kale ee dadka ku takhasusay ay yiraahdaan akhriska waa laga helaa ama dadka tijaabiyay waxa ka mid ah qofku in uu xasilooni ku dareemo waxa la yiraahdaa qofka wax akhriyahay uu ka xasilooni iyo kalsooni u badan yahay qofka aan waxba akhrin waxa la yiraahdaa kale qofka wax akhriyahay waxa uu nool yahay qarniyo badan wuxuu la nool yahay dadkii ka tagay qaanuunka ka horeeyay sababta wuxuu akhrinayaa wixii ay qoreen sidoo kale haddii uu qoraa yahay naftigiisu wuxuu la mid yahay ama sii noolaan doonaa qarniyo dambe waxa ugu muhiimsan ee dadku maanta la rabo in la ogeysiyo ama ogaadaan waxa weeyaan faa'iidada akhrisku u leeyahay iyo sidii wax loo akhrin lahaa casharada ugu badan ee hamuun qabaan dadka dhalinyarada Soomaaliyeed ama reer mudug ee magaalada ku sugan waa sidii ay wax u akhrin lahaayeen waxay akhrin lahaayeen marka mas'uuliyadaas waxay saaran tahay waxa weeyaan qorayaashii reer mudug ee gobolka ku sugan horay ayagu ugu soo caarmaalay waxana u soo akhriyay waxana u soo qoray faa'iidada akhrisku u leeyahay fahamsan ayaa laga rabaa sida ay ubadka kale ee ka dambeeyay ay wax u bari lahaayeen